coronavirus ilaa goorma ayay suurtagal tahay in laga xoroobo fayraskan sida ay u badan tahay qof walba wuxuu isweydiinayaa goorta ay joogsan doonto cabsida coronavirus iyo saameynta faraha ba-an ku haysa dunida. dad badan ayaa ka fikirayay goorta laga baxayo xayiraada iyo is-ilaalinta ama gebi ahaanba in la hilmaami doono argagaxa uu abuuray cudurkan. waqti xaadirkan ma kala cadda ilaa inta ay sii jiri doonto saameynta cudurkan ama ilaa muddada dadka looga baahan yahay inay kala fogaadaan, laakiin khubarada caafimaadka ayaa fikrado badan ka qaba. aqoon-yahano ku takhasusay cudurka faafa kana tirsan jaamacadda qaranka ee Singapore ayaa sheegay inuu rajo badan ka qabo maadaama hadda ay 3 isbuuc gudahood kusoo yaraatay tirada dadka cudurka kusoo ridanaya gobolka ee uu ka bilowday Huai oo ku yaala dalka Shiinaha. hase ahaatee dowladda Shiinaha ayaa dadaal badan u gashay xakamaynta caabuqan iyadoo xayiraado adag kusoo rogtay gobolkaas iyo qaybaha kale ee dalkeedaba. baaritaano si joogto ah loogu sameeyo dadka, qof walba oo laga shakiyana waxaa loo diraa karantiil, laakiin meelaha qaar oo baaritaankoogu uu dabacsan yahay ayaa la filayaa inay waqti intaas ka dheer qaataan. Professor ka tirsan jaamacadda Kowloon oo ah aqoon-yahan ku takhasusay cudurka safmarka ah kana tirsan jaamacadda Hong Kong ayaa yiri runtii ma nasan doono ilaa cudurkan loo helo tallaal, taasina waxay qaadan doontaa 18 bilood ama 2 sano. xitaa marka ay dhammaadaan xayiraadaha weli waxaa jiraysa halis ku aadan in mawjad kale oo caabuq ah ay dib u bilaabanto, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. xayiraadahan muddada dheer socda ayaa runtii dhaawacaya dhaqaalaha dalal badan halka cudurka safmarka ahna uu waxyeelo ba-an u geysanayo caafimaadka dadweynaha. dadka dhalinyarada ayaa la sheegay inuu adkeysi badan yihiin caabuqan coronavirus haddii uu ku dhaco.